Asalaamu calaykum. Waa in salaamay dhammaan dadka halkan ku jiro. Ma lagu jiro horta marka hore. War ma joogtaan? Hadda la soo gelayaa. Asalaamu calaykum. Waa in salaamay dhammaantiin dadka halkan ku jiraan mar kale. Waxaan rabaa inaan galo live 30 sekin aanan ka badnayn kaasoo ku saabsan inaan u tacsiyadeeyo dhammaan dadkii ku waxyeeloobay maxaa lahay sheekh qaraxii X control afgooy ee shalay dadkii ku dhintay waxaan leenahay dhammaanteen ilaahay ha u naxariisto qofkii qofka ka dhintay ilaahay ha ka sabar siiyo maamadii wiilkeeda ku dhintay ilaahay ha ka sabar siiyo ilaahayna caloosheeda u qaboojiyo gabadhii ninkeeda ugu geeriyooday ilaahay iyadana sidoo kale asayda ha u fududeeyo caloosheedana ilaahay ha u xiro oo ilaahay sabar iyo iimaan ha ka siiyo gabadhii walaalkeed ku dhintay wiilka walaalkiis ku dhintay annagoo dhammaan bay naga wada baxeen oo naga dhinteen saa darteed waxaan rabaa inaan tacsiyo tiiraanya leh halkan uga diro dhammaan dadkii ka geeriyooday dadkii qaraabadii iyo maxaa la eheladii saaxiibadii walaaladii dadkii ka wada dhaawacmeen waxaan rabaa inaan dhaawacana dhaho ilaahay caafimaad degdeg ah u soo dejiyo intaas kadib waxaan rabaa inaan dhalinyarada aan ama isku age ka nahay ama maxaa la ii sheeg maanta markii dib yimaado waxaa la yidhi dabaqi meel beeshay marka waxaan dhammaan rabaa inaan maxaa la ii sheeg ku dhiirigeliyo dhalinyarada ku sugan magaalada muqdisho inay ka qayb qaataan gurmadka loo fidinayo walaalahood oo ku saabsan in la caawiyo oo maxaa la ii sheeg inaan qofna waxba ka dayrinin for example xitaa qofkii awoodo $10 ugu yar inuu ku deeqo oo walaalihiis wax ka caawiyo oo walaalihiis maxaa la ii sheegeen sadaqadaasi ay u noqoto mid maxaa la ii sheeg bari isaga anfacda haddaan anaga dhalinyaro nahay maanta qofkii kayd haysta qofkii maxaa la ii sheeg shaqaysta qofkii maanta lacag soo gasho haba ugu yaraatee haddii doonto sadaqada yaraanna ma gasho weynaanna ma gasho saa darteed inaan sameyno dhammaanteen inaan wax sadaqaysano oo wax baxsano oo maanta waxa maxaa la ii sheeg sidee doonaan nagu soo galaa laakiin qof aan haysanin qof u dhiban markaas siiso waxaad heli doontaa ajarkaas iyo mid ka wanaagsan iyo inaanan la sameynin wax ku saabsan kaamirad oo dadka kaamirada isticmaala haddaana markaas shirkado ama dad waaweyn ama madax ahayn inay dhalinyarada yaryar iska ilaaliyaan inay sadaqadooda ay baxsanayaan inay video kasoo duubaan ama picture ka qaadaan taas waa aniga taladeeda marka waxaan dhammaantiin idinku boorinaya oo dhammaantiin idinku dhiirigelinaya oo dhammaantiin aan maxaa la ii sheeg maadaama aan dhalinyaro nahay oo maanta maxaa lahaa fanaan halkaas iska dhig waxaa waaye wiil dhalinyaro ah oo maanta maxaa la ii sheeg codkiisu meel dheer gaarayo maadaama waxaa idinku dhiirigelinaya oo idin farayaa inaa maxaa la ii sheeg walaalaheen aan dhammaanteen especially dhalinyarada faraha badan ee joogto magaalada muqdisho ee maanta maxaa la ii sheeg qaarkood wax badan shaqaysto qaarkood keedad u yaalaan waxaan dhammaanteen idinka codsanaya inaan inta is abaabulno si degdeg ah aan gargaar aad iyo aad u weyn aan gaarsiino walaalaheen inta aan awoodno waa mahadsantihiin dhammaantiin wax kale ujeed kale uma soo gelin halkan waxaan usoo galay dhammaan tacsiyadaas in dadkaas inaan u duceyno iyo inaan intaas maxaa la ii sheeg isku sheegno maadaama codkayga meel dheer gaaraya intaan wadada daawanayso maanta ay maxaa la ii sheeg ay maqli karto ama arki karto waxaan isdhahay bal codkaaga qaybta wanaagsan ku gaarsii dadka muslimka ah dhammaantiin waa mahadsantihiin allah idin sharfo igraale ahaado waqti kale yaan ka dhigan doonaa wixii hadal ah laakiin hadda halka ulajeedka aan usoo galay waa intaas aad iyo aad u mahadsantihiin I love you so much all ilaahay caafiyo dhammaan dadka xanuunsan ilaahay ha u naxariisto waxaan ka codsan lahaa inay Soomaaliland sii daayaan iyaguna nabad bay helayaan waayo hadday u ogolaadaan ictiraafkooda qaraxa iyo dhibaataduna way ka baxaysaa waa walaalahood
muqdisho haddii la iga maqlayo waxaa loo lahaa somaliland sii daayay haddaan la isxaqirayn waa dad jira madaxweyneyaal fara badan soo maray la isma qariyo anigu cidna kama hibayso somaliland ha noolaato